boqortooyada Sacuudiga waa dal dhac galbeedka Aasiya ama mandaqada Bariga Dhexe ama jasiirad lamoodka Carabta. Waxa uu ku fadhiyaa masaafo ka badan 2 milyan oo kiiloomitir isku wareega. Ku dhawaad 4 jeer ayuu ka weyn yahay dalkeena Soomaaliya. Waa dalka labaad ee ugu baaxadda weyn wadamada Carbeed, sidoo kale waa dalka ugu weyn galbeedka Aasiya ama Bariga Dhexe. Waana dalka shanaad ee Aasiya ugu weyn, aan kan 12aad ee dunida ugu baaxadda weyn. Wadanku waxa uu xuduud la wadaagaa 8 dal oo Carbeed oo kala ah Yemen, Oman, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq iyo Urdun. Waa dalka qura ee ay maraan labada badood ee kala ah Badda Cas iyo Badda Biyaha Gacanka Persia. Ku dhawaad 34 milyan oo qof baa ku nool wadankaas, 38 boqolkiiba kuna dhow ilaa iyo 13 milyan oo qof waa ajaanib dalka ka shaqeeya. Waa dal ay ku yaalaan goobaha ugu barakeysan muslimiinta, sanad walbana waxaa booqdaan xajka dad kor u dhaafaya 4 milyan oo qof. Boqortooyada Sacuudiga waxaa la aasaasay 88 sano ka hor, waxaana sameeyay Cabdulcasiis ama Ibn Sacuud oo ahaa aabaha boqor Salmaanka maanta maamula dalkaas. Waa dal dhaca mandaqad muhiim ah, badankiisna saxaro ah balse hodan ah. 6 sano kadib xilligaas, kuna beegan 1938 ayaa laga helay shidaalka. Maanta Sacuudigu waa dalka labaad ee ugu shidaal soo saarista badan caalamka, waana dalka koowaad ee ugu shidaal dhoofinta badan dunida. Sidoo kale Sacuudigu waa dalka labaad ee leh kaydka shidaal ee ugu ballaaran caalamka, waana kan shanaad ee leh kaydka gaas ee ugu ballaaran caalamka. Sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa Sacuudiga inuu yahay awood hogaaminaysa tamarta dunida. Kaydka kheyraad ee dalkaasi ceegaaga waxaa lagu qiimeeyaa lacag dhan 34 trilyan oo dollar. Waa dalka saddexaad ee leh kayd hantiyeedka kheyraad ee ugu ballaaran caalamka. Dhaqaalaha Sacuudiga waa kan 18aad ee caalamka ugu ballaaran, aana dalka ugu dhaqaalaha badan galbeedka Aasiya ama guud ahaan Bariga Dhexe. 780 bilyan oo dollar ayuu gaarayaa GDP-ga dalkaasi. Dakhli sanadeedka soo gala Sacuudiyaanka sanadkii waa 54,000 oo dollar celcelis ahaan. Waa dal ka mid ah wadamada heerka horumarka bulshadooda aad u sareeyo. Sidoo kale dalku waa mid ka mid ah wadamada nidaamka warshadaha ku horumaray ee G20-ga. Shirkadda shidaal soo saarista u qaabilsan dalkaas ee Saudi Aramco waa shirkadda ugu qiimaha sareysa caalamka, aana tan soo xareysa hantida ugu badan sanadkii. Waxay maamushaa kayd shidaal oo kor u dhaafaya 277 bilyan oo fuusto, waana shirkadda ugu shidaal soo saarista badan caalamka. Hantida ay soo xareyso waxay kor u dhaafaysaa 1 trilyan oo dollar. Sidoo kale Sacuudigu waa dal dhanka ciidamada qarash aad u badan ku baxsha, kaasoo xulufo la ah galbeedka. Waa dalka saddexaad ee qarashka ugu badan ku baxsha ciidamadiisa, sanad walbana 63 bilyan oo dollar ayuu ku baxshaa. Sidoo kale waa dalka ugu hubsoo iibsashada badan dunida. Nidaam ahaan waa dal boqortooyo ah oo Islaami ah, waxaa maamula dalkaas hal qoys. Sharciga ugu sareeya boqorka ayuu gacanta ugu jiraa, inkastoo dhaxal sugaha dalkaas oo wiilkiisa ah uu si rasmi ah dalkaas u maamulo. Sacuudigu waa dal saameyn ballaaran ku leh mandaqada uu dhaco iyo guud ahaan wadamada Islaamka, isuna arka hormuudka wadamada Sunniga ah. Siyaasadda dibadda ayuu dhaqaale badan ku baxshaa si uu ugu muuqdo. Wadamo badan oo Iran iyo Turkiga ugu horeeyaan ayay isku hayaan maamulidda Bariga Dhexe. Sharciyan diinan Islaamka ahayn inay dadkeedu si rasmi ah macbadyo ugu yeeshaan lama ogola. 85 boqolkiiba bulshada dalkaasi ee Sacuudiyaanka ah waa Sunni, halka 15 boqolkiiba soo haray ay Shiici yihiin. Dadka wax qora waxna aqriya dalkaas ku nool ayaa bulshada ka ah 95 boqolkiiba, halka cimrigoodu gaaro ilaa 77 sano celcelis ahaan. Sacuudigu waa dalka ugu weyn dunida wadamada aan webiyada lahayn. Dhanka waxbarashada dalkaasi, jaamacadaha ugu tayada sareysa ee Aasiya ayaa ku yaala oo qayb ka ah 100 jaamacadood ee dunida ugu wanaagsan. Intaas ayaan kusoo koobayaa. Haddii aad ka heshay barnaamijkan, like saar. Mahadsanidin.